الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى mahadsan. waxaan rabaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo kaliya ku saabsan aduuba ku saabsan baaq iyo waxa weeye bogaadin labadaba isugu jira. marka ugu horeysa insha Allah taala horta baaqa waxaan u dirayaa abaarta jirta waxa keenay horta Ilaahay baa keenay subxaanahu wa ta'ala. baaqa koowaad horta Ilaahay baan u dirayaa subxaanahu wa ta'ala maadaama lagu jiro bil Ramadaan waliba xilliyada ugu dambeysay oo khayriga ahayd horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaartan u saaka Ilaahayna ka qaado. marka labaad insha Allah taala waxaan u dirayaa baaqa bulshada si guud oo waxaan leeyahay bulshadu waxyaabahan oo kale musuubooyinkan markay yimaadaan waxyaabaha laga gudbo kamid ah isku tashi bulshada isku tashato sida muuqata dawladdu door bay qaadanaysaa bulshada qaybtood door bay qaadanaysaa waxaan rabnaa marka awoodahaas insha Allah taala in la midayo oo dadka waxa weeye dhibaataysan abaartu aad ku saameysay waxa weeye maadaama xilli adag lagu jiro loo gargaaro si hoosan loo eego sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa gudiyadii abaaraha oo dawladda magacowday oo runtii gobolo badan gaadhay iyaga laftigoodu oo sarfeyga ay sameeyay waxa weeye ku qiyaas qaatay goboladu si u kala saameyn badnaayeen abaarta u kala saameysana wax u gaarsiiyay inkastoo waxa weeye waxyaabaha la gaarsiis ka kooban yihiin laakiin shaqada iyo doorka ay qaateen oo ku bogaadinayna waxaan leeyahay jazakallahu khayral jazaa. sidoo kale waxaan bogaadinayaa iyagana dawladda oo iyagana door qaatay oo khidmadihii ay ugu tala gashay waxa weeye guddiga abaaraha ku wareejisay waxaan tabaynaa oo waxa weeye iyagana doorkoodii maqan yahay sida horena loo cadeeyay jaaliyadihii banaanka ahaayoo dabcan door fiican qaadan jiray markay waxa weeye arrimaha kuna dhacaneen marka iyagana waxaan leeyahay insha Allah taala jaaliyadihii waxa weeye inay doorkooda qaataanin oo arintan waxa weeye taagan oo masuubada ah ay kalintooda muhiim ka qaataanin abaartuna si guud Soomaaliya waxa weeye waa ku dhantahay marka iyadana waxaan soo jeedinayaa baaqoodan dawladda Soomaaliya oo si guud arintan waxa weeye waa arin caam ah weeye waxaan rabnaa focuska in la saaro xaaladda taagan oo waxa weeye hadda jirta laakiin focuska waxa moodaa xoogaa inay weecsan tahay oo arrimo siyaasadeed iyo waxyaabaha la isku hayo focusku halka saaran yahay waxaan xaaladda abaareed ee guud ahaan Soomaaliya ka jirta waa mid khatarteedana wadata kana sii daraysa marka Puntland la joogana way ka sii daran tahay runtii xaaladuna waa maalmaanta ka sii dambaysa way ka sii liidanaysaa sidaa awgeed waxaan u jeednaa inay bilowdeen oo xilli horeba ay bilowdeen dadaallo arintaas looga jawaabayo ha ahaadeen dadaallo ay shakhsiyaad gaar ah ay wadaan mid ay guddiyo kala duwan oo heerar kala duwan ay wadaan heerar degmo iyo heer stateba iyo qaramada ay sameynayaan shirkadaha ganacsiga iyo shakhsiyaadka kala duwanba oo runtii ah tallaabo weyn oo looga jawaabayo wax weyn looga geysanayo xaaladaas abaareed ee xun waxaan rabnaa waxa ugu weyn oo maantay in hor yaala bulsho ahaan waa in ishii dhaqaale ee bulshadeena oo ahayd xoolaha nool ay khatar ku jirto xooluhu marka bulshadeena si rasmi ah loo fiirsho xooluhu waa isha ugu muhiimsan ee dhaqaale ay ku tiirsan yihiin baadiyuhuna ama miyiguna waa meesha aynu nolol ahaan aad ugu tiirsannahay marka dib walba oo halka gaartaa waa dib walba oo si guud inoo wada taabanaysa miyi iyo magaalaba nolosheena aasaskeeda taabanaysa marka inaan istaagno wixii qof walbaaba kaga aadan uu arintaas ka jawaabideeda door ku lahaado waa laga maarmaan waxaan baaq ku dirayaa in la mideeyo dadaalada kala duwan ee abaartaas looga jawaabayo in la mideeyo oo ah wax ugu muhiimsan in dadaaladu ay mideysan yihiin oo hadba tabarta inta la mideeyo baan waxaan isleeyahay waxay yeelan karaan saameyn weyn oo waxtar weyn way yeelan karaan markii la mideeyo tabarta baaqaasaan dirayaa waxaanan cid walba ka rajaynayaa inay kaalintooda buuxiso oo ay wixii kaga aadan arintaas ay runtii xilligan lama joogo xilli loo kala aamuso maaragtay
waxayna ku qurux badan tahay cid walba inay doorkeeda qaadato eego jiitankeeda iyo inta ay jidhay abaartaani ka saameyn badan abaarihii hore oo sida hadda xoguhu sheegayaan khiyaar badan oo la wareystana ay sheegeen ilaa iyo 4 xilli roobaad oo hadda isxiga aan la helin taasoo keentay in dhulkii runtii uu xaaluf noqdo xoolihiina waxay gooyaan oo ay dhulkii ka soo qaadaan ay jirin sidaas la mid ah biyihii iyaguna dadkii abaartii ay saameysay isu guurguur aad u tiro badan dhacay isu guurguurkaasina uu sababay xataa meelihii xoogaada guga ah ee yar laga helay intii ugu dambeysay gobolada tan bariga u badan in ay biyihiina yaraadeen dadkii biyihii lala gaari waayo marka waxaan baaqayga ku biirinayaa si la mid ah khiyaartiiga horeysay in maanta ummadda Soomaaliyeed gacanta la iswada qabsado xaaladaana qof walba intuu ka geysan karo uu ka geysto Allah subhanahu wa ta'ala baa dhibaatadan keenay isagaana qaadi kara isagaan markooda xaqiisa u laabano toobad keeno maxaa yeelay mid waa inaan yaqiinsanaa dhibaatadan waxaanu inuu gacanteena ku samaysanay way Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ma asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum waxaan gacanteena inuu ku qabsanay waliba wayaafu an kathiir leeno ma wada qaban Allah subhanahu wa ta'ala in badan oo kamida ayuu inoo dhaafay marka koow waxa layna ka rabaa in Allah subhanahu wa ta'ala u laabano intaas wixii ka dambeeyay inaynu awoodeena iyo gacanteena aanu mudayno waxaanu qabsan karnona aanu wada qabsano runtii waxaan baaq u soo jeedinayaa dhammaan anoo ku bogaadinaya ka dawlad ahaan iyo ka bulsho ahaanba abaabulka la wado in awoodii la midayo meel wax lagu wada ururiyo ummadeena si midaysan wax loo gaarsiiyo sidaas la midana hadee qaababka ugu fiican ee looga qayb qaadan karana waxa kamid ah islaahay anigu war qof walba intaad og tahay ee gacantaadu gaadho ee afkaagu gaaro ishaadu gaadho waxaad tari ka dhotar waxaad gaarsiin ka dho gaarsii bismillahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa asxaabtii ugu horeysay sidii sheegeenba inaan aniguna maaragtay baaqayga aan ku biiriyo in la garab istaago ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen runtii aan isleeyahay abaartani wax ka duwan tahay abaarihii horeeto waxaynu bulshadu u baahan yihiin garab istaag iyo maaragtay in la caawiyo abaaraha runtii markii la fiiriyo abaartan waxay kaloo ay gaar la tahay adduunyada waa la socona xaaladeeda maaragtay maanta meeshay marayso Soomaaliya inta badan dadku waa dad ku tiirsan waxyaabaha dibadda uga yimaada waxaan isleeyahay saameyntaas oo iyada laftirkeedu magaalooyinkiina ay qayb kala noqonayaan inay abaaruhuna runtii jira ay marxaladda maaragtay wax ku sii darayaan marka ummadda Soomaaliyeed ummadda islaamka meel bay joogaan waxa la rabaa inay isgarab istaagaan bulshada inteeda maaragtay ladan oo Ilaahay wax siiyo waxa la rabaa hantida Ilaahay siiyay in Allah uga cabsadaan oo ay bulshada maaragtay maanta tabaalaysan ay ku taageeraan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii qof dhibaataysan dunida dusheeda maaragtay dhibaato ka fayda maalinta qiyaamada ayaa isagana maaragtay laga feediyay dhibaatada daran jirto marka waxa la rabaa ummadeenu maaragtay inay isgarab istaagto iscaawiso waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddiga abaaraha iyo dawladda iyo ururada gaarka iyo waliba shakhsiyaadka sida gaarka iyaguna maaragtay isu abaabulay oo runtii barnaamijkan si maaragtay nafhurnimo ah uga shaqeeyay sidoo kale waxaan iyagana aad ugu mahad celinayaa qurbo joogta runtii iyagoo maaragtay dalka ka maqan haddana marxaladda iyo xaaladda dareemayo maaragtay ka qayb qaadanaya sidoo kale waxaan baraarujinayaa inta maaragtay aan wali ka qayb qaadana inay maaragtay ka qayb qaataan oo bulshadooda la dareen noqdaan la istacaawuno dawladdan waxa laga rabaa runtii abaarahan muddo soo laalaabanayeen in maaragtay siyaasad ay dawladdu ka keento abaarahan waxa wadamo badan oo waxa jira sideena oo kale abaaraha oo kale ugu dhici jireen laakiin hadda ka gudbay runtii Soomaaliya oo wadan maaragtay qani ah abaarahanna maaragtay waa wax maaragtay laga gaashaaman karo laakiin waxa la rabaa policy dawladdu inay keento bulshaduna maaragtay ay ku ayido lagana qayb qaato sidii maaragtay abaartan daba dheeraata soo laalaabta xaaladda maaragtay daran gaarsiisa bulshadeena waliba qaybta badan waxa la sheegaa dadka Soomaaliyeed 70% inay yihiin reer miyi marka abaar markay dhacdana dadka ugu badan oo u nugul waa dadkaas marka waxaan nahay bulsho inteedii badnayd runtii abaar ay la ildaran tahay ama ay saameyso
marka waxaa la rabaa in si guud aqoon-yahanka waxgaradka dowladda iyo maaragtay in si guud loo fiiriyo marxaladaas oo laga qayb qaato. baaqaygana waxaan ku biirinayaa in abaartaas soo daba dheeraatay soo laalaabatay in maaragtay laga hortago laysna caawi la iska garab istaago insha Allah haddii la yiraahdo. bismillaahi raxmaani raxiim. sida akhyaartii hore ay sheegtay waxaan baaqayga ku biirinayaa dadaalada lagu wado garab istaaga dadka abaaruhu saameeyeen ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. runtii xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in abaarta 2026 ay dadka ay hadda saameysay gaarayaan ilaa 6.5 milyan, waana tiro aad u badan. waxaan intaa garab socday dadaallo la sameynayay oo heerar kala duwan leh. waxaa kow ka ahaa dadaalada ay dowladda Puntland waxa weeye ay bilowday inay guddi dhisto. sidoo kale waxaa jira dadaallo ay ashkhaas si gaar ah u sameynayeen. dhammaan dadaaladaas la wado waan bogaadinayaa. sidoo kale waxaan ku biirinayaa kelmadeyda in dadka inta dhimani ay ku dhiiradaan inay dadkoodaas abaartu saameysay ay garab istaagaan. runtii waxa kaliya la oran karana waxa weeye mar waa sadaqo, mar labaad waxa weeye waa qof baahan oo naftu waxa weeye haysay inaad garab istaagto waa bini'aadanimo. inaha ka gadaal waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa macaahidda iyo xarumaha muujiye iyo nadaal iyo isdir oo garab istaag waxaan ka dhicin sameeyay inay xogtii soo qaadaan oo soo bandhigaan. warbaahinta sidoo kale doorka qaadatay oo u mahadnaqayaa. inaha marka laga yimaado waxaa kaloo jira in muddadan dambe adduunku uu dagaal galay. waxyaabo badan oo garab istaag oo adduunka dhexdiisa waxa weeye dadyowgaasi ay sameyn jireen. waliba dadka Soomaalidu aad bay waxay ugu tirsan yihiin faniska iyo humanitarian aidska. marka maadaama dagaal jireen waxaa muuqanaysa in waxa weeye dadaaladii ay bixinayeen dadyowgaasi oo meesha baxo. waxaan baaqayga ku darayaa in dadkeena guduhu ay gartaan inuu maqan yahay, inuu jiro gaab ah in dadyowgii waxa weeye humanitarian aid ka bixinayay laftirkoodu ay xaalado kale ku jiraan. ay tahay in booskoodii lama buuxin karo, in la isku dayo in waxa weeye dadaalkiin aan la wajbaahno in booskaana buuxino dadkeena aan garab istaagno. ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa guddiga abaaraha oo xaaladan waxa weeye guntiga u xirtay inay dadyowgooda waxa yar ee loo dhiibay ay gaarsiiyaan. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa shakhsiyaadka sida gaarka u isu diray oo runtii qulubteennana ku yaala. waxaan leeyahay labadiina waa mahadsantihiin. waxaan intaas ku sii darayaa in la sameeyo qof walbaaba waxa weeye uu fan wuxuu awoodo isagu wixii awoodiisa ah uu gudiyada abaaraha iyo dadyowgaas gaarsiiyo. jaaliyadaha iyo dadyowga waxa weeye Soomaaliyeed kale in xusiniinta ana waxaan ka codsanaynaa inay dadkeena abaaraysan ay waxa weeye garab istaagaan xilligan. ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu raxmadiisa noo shubo. waxaa jirtay in muddadan dambeba roobabkii ay qaarna yaraayeen qaarna la waayay, deertii oo kale la waayay. inahaasan kusoo gabagabeynaya. mahadsantiin.